magaalo saddex rasuul loo diray oo diiday الرسول الله دري ديدين ومد كلا لو كردي او ديدين ومد سدحات لو دري فعززناهم بثالث دبتنا ويس سو تاغي ان تطيرنا بكم بابك مريم وديدين دينتي nin magaalada ay joogay laakiin dacalka kale joogay halka ka joogtaan magaalada kale ka tirjo wuxuu maqlay magaaladii in rasuultimiyo dadkii diideen دبتنا إلهي قرآنك وحكوت الماما يا هل كاسوك عررا وجاء رجل من أقصى المدينة وجاء رجل يسعى له الرئيس من أقصى المدينة ما هو الرئيس إيه وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى إلهي مركو روحوت الماما مشو كي من مشي اللي اسكوها ياين أنا يحين مركو كواد أقصى المدينة بالليل magaalada dacalkeeda halka u durugsan buu ka yimi waxa kaloo la tilmaamay qaabku u socday nin iska xaragoonayo ayar socday inaanu ahayn nin ordaya inuu ahaa tolkii buu rabay inuu badbaadiyo magaalada dhinaceeda dambe nin ordaya ka soo cararay baa Ilaahay yiri wuxuu leeyahay ninkani wuxuu iska xil saaray eegada isma oran war meesha saddex rasuul la beeniyay adiga mid baa wax ka dhageysanaysa iska tagtay danaha iska raaco hada waxa laga yaabaa inaad tiraahdo war markaa wadaadku wacdiye wadaadkii waa haddaan raacin maxaad iga kullu goynaya kan laakiin saddex rasuul baa la diidan yahay laakiin wali wuxuu dareesay in xil saaran yahay inuu qof bini aadam oo wax qaban kara inuu yahay inuu wax taro dabeetana Ilaahay wuxuu leeyahay wuu soo cararay ninkaas meeshuu yimi isagoo leh maxay ittabi'u al-mursaliin ittabi'u man la yasalukum ajran وهم مهتدون وارتلك يا أبولي والرسول الراعة وارتدى وحبابا إذن كربين وهدناها ننسان محاكو ديديسان بني آدم وهدو أتستراحضا أما تشاب كاوكو صعدا أما مقعية ما مصية مدحنمية وحبوكا قدونية على بين السيرات كيسو اسبضحات كيسي لكن غفك هدو وحكو الشاقيسو وحبابا كاربين أدون كويديسان مدحنمي كويديسان وحبابا كاربين هدو وحكو الشاقو وهاتلاده قفك سوكو نسيحي إلا الدنك لو كوكو قبا مجرته وهاتلاده وكو نسيحي وحوني كان إليه هاي والرسوش الراعة وايو أدون نيدن كمان ربان مقعنا وحبايدي كما دونيا اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وروانا هنوسين وحق بايدين شيئا وحكالو إذا كربا أنما يجران الراعة بكليه ولداس ما يراعين سقوح شاكتين مؤمني إنه إلهي الرميي رسوشنا الرميسيي تبهتنا ويدلين سي علماء الشيخية ويدلين markay dileen maxaa dhacay ilaahay baa quraanka wuxuu inoogu soo guuriyay ninkanoo aakhira jooga wixii hadana ka fakarayay hadama markuu adduunka joogay shaqadiisii waa la inoo sheegay markuu dhintay aakhira qabtay sidoo hadana uu fakarayay baa ilaahay inoo sheegay aakhira markuu tagay muu oranin nimankii rusushana diiday adigana ku dilay ilaahu midha ka reebin kama fakarayn ee wali wax tarbuu la rabaa يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بولي يا ليت الله جعل الله يا بولي تلكي إني أقال لهايين سيد إلهي الدنبي يقول رافي أو يكرمي النعمة يسيي جعل الله يني ما أنت أقادان سيورعان يعني ين الرسول شو صار رعان isagoo aakhira ku maqan ayuu wali wuxuu tolkii la rajaceliyo la raadinaya maxay ayuu wanaag la raadinaya ma oranin war nimankii dilay ee adduunkiiga keenay aakhira ii diray laakiin wuxuu leeyahay isagoo xagga joogo wali wuxuu la jecel yahay kuwa in khayrku gaadho oo tolkii inta ilaahay rumeeyaan waxa uu nimco ku jiriyo wuxuu dambi dhaafastay karaamada alla siiyay inay wax ka helaan idan ayuha alahibba حلنا ورمؤمنك مؤمن كدبطاهي وكادتك أي كسهرتان وكادتك جعلين يسندتك خير كلا جعل وكونا قفافينيا وكادتك وحترك
وكادتك أنفع الدنيا أنفع آخرة بقوله واحد بني آدم لغو أنفعنا كاسبه وحور نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام isagoo dagaal ku jiro yahuud ay dagaalamayaan غزوة خيبر dagaal adag buu ahaa qalcadihii nimankan waa la furan kari waayey dhowr maalmood baa dagaalku socdo la isku soo noqonayay maalintii dambe nabigu yidhi saaka waxaan raayada calanka muslimiinta waxaan u dhiibayaa nin ilaahay uu jecel yahay ilaahay rasuulkiisu jecel yahay isla jecel dabeetana cali ibn abi talib baa loogu yeedhay cali oo bokooraba ku dhacday waa bokooraysan yahay cali meeyo waa bokooraysan yahay baa la yidhi u yeedha buu yidhi cali ku tufay oo u duceeyey cala indhihii fay u yidhaahdeen dabeetana calankaa loo dhiibay calanku waa hogaamintii janankii ciidankaa laga dhigay afka aynu maanta ku hadalno ciidanka inuu ka haysto ayaa loo dhiibay haddaad gaalo is haysaan oo aad dagaal dhowr maalmood oo hore ku wada jirteen oo wax idinku kala dhinteen oo goobtaa isku haysaan oo ninka aad dagaalka gelinaysaa maxaad kula dardaarmi lahayd waxaa laga yaabaa hadday naga caqligeenna inaad ku dardaarmi lahayd nimankaa xabad ha ka sii dayni sidii aad u qaban karto iyo dhadhansii qadhaadhkaaga inaad odhan lahayd laakiin nebi maxamed taa kulama dardaarmin wuxuu ku yidhi islaamnimo ugu yeedh kow nimankaasi waa yuhuud waa la ishayaa waa la dagaalasay haddana khayr baa lala rabaa waayo qofka muslimka asalkaba dadka khayr buu la rabaa asalkaba dadka khayr buu la rabaa gaalnimada inay ku dhintaan faa'iido kuuma laha inaad gaalo ka dhigto dabeetana laysaa faa'iido kuuma laha waxaa kaaga khayr badan inay islaamaan oo islaamnimo ku dhintaan dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi fawallaahi لأن يهديك الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم إلهي ما كنت أرتب النبي عليه الصلاة والسلام إلهي إنه قعنت هذا كهنون يهلنا تكادر أي سيستان متقول إنه كاسر راعه أيا كاغ في عن وكاغ خير بدن إن هذا شجالة كيس عس بالنبي عليه يعني عربتي واجا joogtay ee dollarka ugu weyn iyo diamondka la yaqaan wuxuu gal asas gal as inaad soo hesho nimanka inaad geelooda soo xaabiso waxa kaaga fiican buu nabigu leeyahay kaaga khayr badan inay diinta qaataan inay ku islaamaan hal nin oo ku islaama kaaga khayr badan sidaas awgeed buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayaa in allaha حديث كإمام الترمذي ورينيه حسن كوكت المامة صحيح الشيخ الألباني إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير نبقى حلية الله يا ملائكتيس كوة السماء جره يا واحد لك شوقه حتى أبو نبي قولي هي قرآن جقد كجرته أما كلهم بد كجرة كولا يتهينا إلهي بيوحوا وبريان إلهي إن حرشت السيسين يا أنت كلنا وبريسا قفك ضدك خير كبره قفك ضدك وناق كبره أي خير وبريان يوناق ينحرس يوكا كورا إلهي خلقك يسودم هديك ودعيان إلهي خلقك يسودم هديك ودعيان ما حد دعاء كهريسا إن الضدك وناق بريسد هذا وحين لنا حديث كان يقول بلا بنا يقولها المؤمن يألف يؤلف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف وأنفع الناس والنبي قلت المام عليه الصلاة والسلام مؤمنكم كادتكم كسوه هرتان إلا جعلي سنة ومدى وناق الله جعلين وياي كان سنة ضدك جعلين يقول أنا جعلين خير بين الإسلام رابيني كاس خير ما لها بالنبي إذن كان وحيد يكون خير بدن كينا وأنفع بدن بالنبي عليه الصلاة والسلام أنفع عاسي وحين لنا أنفع الدون والنغنية ورقم وناق أخلاق وناق عفس واحتر عاومه وهذا كسيسه
qof gacan adag ha noqon qof afxun ha noqon laakiin nabigu axaadiista badan ku tilmaamayay wallahu fii cawni cabdin maa kaana alcabdu fii cawni akhiih ilaahay qofka muslimkaa wuxuu u hiiliyaa u gargaaraa intaad adiguna walaalkaa u hiilinayso intaad ka jilicsan wax tarayso ka buka dawaynayso ka jaahilkaa wax baraysid ka tamarta daran la caawinaysid ka lunsan hanuuninaysid intaad sidaa samaynayso adigana rabbu samaawaat baa kabtaada tolaya hadaad muslimka kabtooda tolayso adna rabbu samaawaat ayaa ku hagaajinaya haddaba ayuha alaxiba waxaan leenahay qalqallafsanaanta iyo cayda iyo maagga badan dadka badh baa diin ka dhigtay dadkoo la maago inay khayr ku jiro waxba faa'iida ku leh maagista iyo adayga iyo qallafsanaanta iyo cayda badani khayr ma leh muuminku waa hayinun layin waxtarkuna ama mid adduun ha noqdo ama mid aakhira ha noqdee waa dhaqan muslim صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين